xildhibaan Abubakar Cabdiraxmaan Good oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland la markaasina laga soo doortay deegaanka gobolka Awdal oo maanta ka qayb qaadanaya dood ay lahaayeen golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu aad uga diiriyay xaaladda guud ee dalka sida arrimaha dibadda, arrimaha gudaha iyo dhaqaalaha. xildhibaanka ayaa sidoo kale waxa uu xukuumadda ugu baaqay in arinta tabashada beelaha Soomaaliland ee saami qaybsiga ay xukuumaddu wax ka qabato. haddii arrinkaasi ay xukuumaddu wax ka qaban weydo ayaa xildhibaanku waxa uu sheegay in 13 mudane ee ka tirsan golaha wakiilada ka soo jeeda gobolka Awdal ay gabigoodu bay isxasili doonaan. xildhibaan Abubakar Cumar Good oo arintaasi iyo arrimo badan ka hadlayna waxa uu yiri waxa iska weydiinaya war xaaladda saaxiib uga samaysan weli tala qaran oo la iska yimid ama maahina tala xukuumaddu ku dhaqaaqday ama hogaamiyaha madaxweyne uu sameeyay oo isaga loo igmaday xilka mas'uuliyadda koowaad haya weli lagama maqan tallaabo uu qaaday ama tallaabo weli ku dhaqaaqay xaaladda dalkoona oo mar walba marka dambe go'doon soo galay taasna horta waa nasiidaro wax suuragal ah ma aha insaan loo daawado oo la eego waa in tala qaran xaaladda laga yeeshaa xaaladda kale arrimaha gudaha waxaa loo yahay xagga nabadda inaan arkayno xaaladii dalka oo si u soo ururaysa oo maadaama cadow badan leenahay aad arkaysid in badan lagu qabtay golihii baarlamaanka golihii shirkii wasiirada lagu qabtay oo intaas oo cisho la joogay oo dalkii Soomaaliland oo madaxweyne Puntland intuu yimaadaha ka talinayo oo shirkii wasiirada ku qabsanayo oo una hadal wali ka soo bixin xukuumadda marka ma waxa dhacana baraala laga yahay miyaa la sugaa ilaa xuduudan aad leedahay oo meel aad maamulayso barasaab ku joogo oo ciidan ku joogo inuu yimaado madaxweyne uu wasiiradiisa isagoo yimaado oo uu shir ku qabsado oo la daawanayo maxay xaaladda lagu qiimeeyaa miyaa laga noqday ka dhigantay marka Soomaaliland istaagtaankeeda marba baa la goynaya siyaasigu marka uu wuxuu jeedo dadka si kala loo qanciya xaaladda si kala loo qanciya waayo markuu dhacdo wax kuma dhicin maxay tahay ujeedada intuu madaxweyne yimaado uu ku qabsanayo shir golihiisii wasiirada wada socda uu ka hadlayo oo intaas oo dhan fadhiyo uu shirka ku qabsanayo oo isagoo nabadgelyo ah markuu doono ka noqonayo haddana laga dhisay xaruntii baarlamaanka baran xaaladda maxaan ku qiimeynaa ilaa dad baan soo doortay ummadani wakiiladii ummadaan nahay wixii qaldan dadkii qaban lahaa baan nahay maxaa inaga inooga yaalan wax la xaaladda ka soo saarno ribad buuxa oo xaaladda saameynaya oo ka hadlaya waxaan arkayaa anigu xaaladda demel karo maxay noo hadhay ka dhigan waxaad arkaysaa xaaladda sool beelaha islaayay dagaalada walba dhici jireen awalba loo gurmi jiray mar walba soo dhici jireen qaab iyo xaalad dhinac si waan xallin jirnay odayaasheena golaha buurta soo qaabilsanaa odayaal dhaqameedka oo gobollada iskaga yimaada siyaabo badan baa loo xallin jiray maanta waxa dhacay xuduudaha waan kala leedahay ciidankeedu intuu tago xuduud kale ma tegi karo maanta waxa dhacay in ciidan intuu yimaado oodihiisii wataa uu ka talinayo kuweeniina ay geli kar laayihiin oo aad dib u dhawaan laayihiin oo ogolaashay ka waayeen odayaasha buurtida waa xaaladdu si u socoto waxa lagu qabanayaa sool baa lagu qabanayaa golihii muxuu ahaa baarlamaanka ee Puntland lagu dooranayaa oo dadkii reer baali dooranaya oo dadkii u matalaya dooran waligeed ma dhicin dhowr 27 sanadood in lagu doorto golaha baarlamaanka ee Puntland in sool dhexdeeda odayaashu doortaan golaha markaa waxa ma jirto waxa soo saarama waa in report talaaba oo golaha midkiisu wuxuu badan yahay laga soo gudbiyaa oo loo gudbiyaa bulshada iyo madaxweynaha dalka haya waa fulintii waa isaga arrimaha haddii aan eegno xagga xerbaan oo soo baxa buleyn wadanku xeerku waxa weeyaan umadu dani madaxweynaha laftiisu dani xeer wali intuu baaskaray oo madaxweynuhu saxeexay wareegto lagu joojiyo waligeed ma dhicin
أول ما نسوي علمي حيركو وبلاد ما قري وحبا لقيتي كرام وحبا سي كرام وحبا مركع شقدي لو شقيو كوري ما كرام لكن ده بروسس ما لو راع ولا بدل مركو يمادو qodobada shaqeyn waaya amadna lagu sameeyaa waxaad intuu sameeyay wasiir sortaago oo wareegta ka soo saaro waliba canaanka koowaad waxa la shirgudoonka warsidaa noqonaysa maxaan ka fadhiyaa maxaan xerar ka soo saarnaa marka hadii la doonayo sidii doonayo inuu shaar isleekisi uu doonayo xukuumadda hadday shaar isleekisi toolanayso oo kee doonto wareegto ku joojinayo maxay noqonaysaa xaaladda dalka ku xusay dee wax suuragal ma aha dalka dadka waan la heshiisyadii waa la fuliyay saamigii waa in si degdeg ah loo galo intaasoo muddo soo jiitamay wax kaloo loo qaataa ma jiro intaasoo muddo kolba soo waxaynay 7 sanadood baa laga soo hadlayay xaalad kale oo maanta hadana la yiraahdo waa sidan wax suuragal ma aha gobolka Awdal intaasoo jeer buu xildhibaanada halkaas ay ka tageen intaasoo jeer la tashibay dadkoodii u tagay intaasoo jeer bay ku noqdeen war maxaa laga rabaa marka xaaladii ugu dambeysay ee isagu waliba uu ballan qaaday ee uu afkiisa ka yiri ee media wax walba lagu hayo tiiba maanta loo fadhiyo suuragalna noqon mayso in la yiraahdo waliba sida way baraad qabanaysaa marayna hadhowna la soo saaro si degdeg loo soo saaro wax macquul ma aha wax loo fadhiyona ma aha saamigii waa in xukuumaddu iyadoo hogaaminaysa xeel soo celiyo halka lagu soo celiyo marna waxa lagu soo celiyo waa ogaa halka uu ka dhamaaday go'aan ma ka soo saarnay golaha buurta iyo golaha baa amreen waxay xaaladda tala qaran laga maxay lagu soo celinay maanta maxalka inoo yaala maanta sawlabiita gobolada soo maray go'aan laga soo saaray shanta xisbi xitaa loo saaray xisbiyada ka gudub ee madaxweynaha u raacay u taal maxaa la inoo soo celinaya golaha go'aan ka gaari kara maanta shirku doonina qabataan ma xaaladda laga gudubtay aan hawlo lagu qaban karin oo dib loo celiyo xaaladda ila horaan u cadeyn horun inoo gudbayna baritan waxa la soo wadaa 3 bilood 4 bilood markay ka hadlo xaaladda hadana ka gaari meelay halo waxay taas suuragal noqon mayso macquulna noqon mayso xildhibaanada ayada gobolka wadna college tooy bas ku noqonayna gobolkiina tula college loogu noqon doonaa waxaan leenahay socon mayso haday lagu kalifayso 13 dhowr xildhibaano iska casmay waa college ugu tiri